honourable member for Etobicoke Centre. Mr. Speaker, the people of war-torn Somalia and the Somali diaspora greeted with much optimism the recent election of Transitional President Abdullah Yusuf and the appointment of Prime Minister Ali Mohamed Gedi. Somalia is a state which has failed its people. This new government provides war-weary Somalis a chance to move towards peace and stability. This past week, the Somali Parliament, based in Kenya, sent delegations to study security conditions and to examine the possibility of return to a country that has had no effective central government for more than a decade. Canadians are directly involved in this process of bringing democracy and civil society to Somalia. For example, 11 members of the Somali Parliament are Somali Canadians, and Canadian Somalis are in key positions in the Prime Minister's and other ministers' offices. Canada must provide international leadership by formally recognizing the new transitional government of Somalia, a government which, while facing immense internal challenges, requires our international support. The honourable member for Windsor. barnaamijka maanta aan idin hayno waxa uu kabnaan doonaa qaybo kala duwan. qaybta ugu horeysa ayaa waxaan ku eegi doonaa shir aad u ballaaran oo ka dhacay magaalada Ottawa. waxaan la soconaa intii dowladda Soomaaliyeed lagu dhisay magaalada Nairobi waddankaasi Kenya si weyn in Soomaalidu meel joogtaba caalamka daafihiisa iyo dalkii hooyo intaba ay aad ugu soo dhaweeyeen isla markaasna ay u tuseen si ay u jecel yihiin inay arkaan dowladda Soomaaliyeed oo iyadu ka taabagasho dalkii hooyo. haddaba barnaamij aad u ballaaran baa ka dhacay magaalada Ottawa. barnaamijkaas waxaa isku soo dubariday Soomaalida ku nool Ottawa iyo Toronto oo si weyn isu kaashaday. waxaa ka qayb qaatay axsaabta kala duwan ee waddanka Canada siyaasiyiinta ka kala tirsan. waxaana halkaa hadallo ka jeediyey dhammaan axsaabta iyagu dowladda Canada oo dhammaantood ka hadlay muhiimadda loo qabo in dowladda Canada ay si wada jira iyadoo aan u kala eegin xisbi hebel iyo xisbi hebel inay u taageeraan ummadda Soomaaliyeed isla markaasna ugu gudbiyaan gacanta loo baahan yahay kana qayb qaataan dhismaha dalka Soomaaliya. waxaa iyaguna halkaa joogay oo xaadir ku ahaa danjirayaasha wadamo aad u badan oo dhammaantood halkaas ka hadlay. danjirayaasha wadamada Sweden iyo Norway ay kamid yihiin iyo Denmark ayaa halkaa ka hadlay. kuwa Ethiopia iyo Eritrea baa iyaguna halkaa goobjoog ahaa. Uganda iyo wadamo badan oo kale oo sida Masar iyo Mareykanka ayaa iyaguna waxa u joogay dad ka tirsan safaaradooda. waxaase dadkii ka hadlay kamid ahaa mas-uuliyiin ka kala tirsan axsaabta kala duwan. qabanqaabada barnaamijka ka dhacay Ottawa waxaa iska lahaa aadan maxamed ciise oo loo yaqaano Sheekh Aadan iyo dadka Soomaalida ku nool Ottawa. haddaba wuxuu igala qaybgelayaa barnaamijka maanta si uu inoogu soo qadimo waxyaabihii dadkii halkaa ka hadlay ay yidhaahdeen iyo jawigu siduu ahaa. aadan maxamed ciise maxay kula tahay waxyaabihii halkaa ka dhacay iyo togani waxyaabihii uu ka yiri? maxamed waad mahadsan tahay adiga iyo dadka daawadayaasha intaba. waxay ahayd xaflad aan taariikhda horey uga dhicin siday u qurxoonayd ama ha noqdo meesha ay ka dhacdo baarlamaanka ahayd dowladda ama ha noqdo tiradii iyo nuxurkii dadka Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay ama ha noqoto dadka parliamentarianka ah oo axsaabta kala duwan oo ka soo qayb galay ama ha noqoto ilaa 10 safaaradood oo iyaguna ka qayb galay barnaamijka ka qayb ka geystay. marka dadka faraha badan oo ka qayb galay waxaa kaloo ka mid ah dad badan oo Soomaaliyeed oo iyaguna aad uga qayb galay. barnaamijka ayaa lagu furay xaflad furitaana oo ka hadlaysay si wada garanaysaan ama Sheekh Aadan waxa uu sheegay in ay uu ahaa barnaamijku mid ay iska kaashadeen Soomaalida ku nool Ottawa iyo Toronto. runtii magaalada Ottawa Soomaalida degan ayaa si weyn uga muuqday. waxaa halkaa isugu yimid dumarkii, raggii, odayaashii iyo caruurtii oo halkaa la keenay. waxaa isaguna halkaa ku sugnaa dad ay kamid ahaayeen haliyey Daahir Xaaji Cismaan Dhagaweyne iyo dad kaloo fara badan. waxaa halkaa lagu soo bandhigay dhaqankii hidaha Soomaalidu u leedahay. cunto aad u macaan ayaa Soomaalida ku nool magaalada Ottawa beesha Soomaalidu ay soo diyaariyeen. waxayna ahayd xaflad si weyn loo soo qabanqaabiyey. waxay la tahayna arrintaas idil waxaa sabab u ahaa ama lafdhabar u ahaa Soomaalida ku nool magaalada Ottawa oo si weyn arrintaa qayb u qaadatay. markii uu aadan maxamed ciise hadalkiisa dhameeyey waxaa iyaguna halkaa ka jeediyay hadallo danjirayaasha wadamada kala duwan ka soo qayb galay dhinaca Afrika. haddii aan daymoono dalalka Suudaan, Eritrea, Ethiopia iyo Uganda, dowladahaas oo aad iyo aad horeyna ugu jiray dowladihii dalka dhalashadiisa dowladda Soomaaliyeed dhalashadeeda qayb weyn ka ahaa. habeenkaasna muujiyay farxad siyaada ah oo aan caadi ahayn oo ay u muuqatay mar labaad inayba Ottawa ama dalka Canada ay ka dhalinayaan dowladdii Soomaaliyeed sida ay habeenka uga hadleen. waxaana aad iyo aad hadal fiican ugu nuuxnuuxsaday gabadha safiirka ka ah dalka Uganda oo markaa ahaa igad dowladda madaxda u ah
oo iyadu aad iyo aad ugu baarlamaanka ka tirsan oo aad iyo aad u fara badan oo axsaabta dowladdu ay ka kooban tahay oo dhan ku jira. waxaa ugu xoog badnaa ama ugu ballaaraa xisbiga dalka taladiisa hadda gacanta ku haya ee loo yaqaano liberaalka, oo badanaaba dad number aad iyo aad u badanna uu ka soo qayb galay. dadka sida gaarka ah xilka isaga saarayna ay ka mid ahaayeen mudanayaasha laga soo doorto meelaha Soomaalidu ay degaan, ee gaar ahaan magaalada Toronto, Etobico qaybaheeda kala duwan, iyo magaalada Ottawa iyadana halka ay Soomaalidu ka degto. aad iyo aad bay mudanayaashaasi waxa ay u taabteen uguna nuxnuxsadeen sida ay ugu faraxsan yihiin Soomaaliya inay dowladdu u dhalato. inay qaarkoodna waxay ballan qaadeen inay soo marti qaadaan madaxda dowladda Soomaaliyeed, bal inay qaarkood waxay ku sii dheeraysteen in la sameeyo baarlamaan ka dhaxeeya dowladda Canada iyo dowladda Soomaaliyeed. arrintaas waxay arrin aad iyo aad loogu riyaaqay oo lagu wada farxay. marka taasna qofkii u baahan kelibiska noocaas inuu daawado ama habeenkaa joogay keliya unbaa runtii hadalka aan sheegayo macaankiisa dhadhansan karay. waxaa ka hadlay oo barnaamijka ka soo qayb galay xisbiga conservative-ka ama muxaafidka ah loo yaqaano, waxaana uga soo qayb galay nin Raxiim Jacfar la yiraahdo, aad iyo aad uga hadlay shabahaadda ka dhaxaysa Soomaaliya iyo dalkii isagu asalka uu ka yimi oo ah dalka Uganda. ninkaasi wuxuu aad ugu nuxnuxsaday inuu doonayo si degdeg ah inuu u arko Soomaali noqota MB sidiisa oo kale, iyo inay isku taariikh aynu nahay. barnaamijkaas markii aan soo koobo Maxamedow daawadayaal, waxaan rabay inaan idiin sheego barnaamijkaas aniga oo ka fiiriyey dhowr angal. wuxuu ahaa barnaamij aniga taariikhdayda iyo cumrigayga aad iyo aad iga yaabsaday, runtii aan aad ugu farxay dhinacyada soo socda awgeed. hadday noqoto taariikhda, waa markii noogu horreysay oo Soomaaliya ay ku qabsato xil noocaan ah ama xaflad noocaan ah dalka Canada, meesha xerada ugu sarreysa oo looga taliyo, oo ay ka mid tahay maxaan ku iraaha oo ay tahay baan ka wadaa aqalka baarlamaanka. laba, cadadkii Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay ee isu dhammaystiraa ama isu balance garaysnaa oo ah dad aad iyo aad iyo aad u habaysnaa, ama ha ka yimaadeen Ottawa, ama ha ka yimaadeen Toronto, ama ha ka yimaadeen Montreal, ee ahaa dadka xulka Soomaalida ah, ama baac mushtari ha noqoto, ama dhalinyaro ha noqoto, ama haween ha noqoto, ama mutacalimiin ha noqoto, ama dad kale oo maxaan ku irahdaa activistayaal ha noqoto, ama siyaasiyiin ha noqdaan. dhinacaas waxaa intaa ka sii daraa, sida aan horeyna usoo taabtay, inuu joogay labada nin maanta oo adduunka kaga nool dadkii u soo halgamay asalka xorriyadda Soomaaliyeed ee ururkii Israel ka tirsanaa, nin ka mid ah oo habeenka annaga oo dhan aad iyo aad iyo aad nooga oohiyey runtii markii uu yidhi Soomaaliya toosoo isku tiirsada, hadba kiina taag daran taageera weligiin, oo uu ka sheekeeyey halgankii ay u soo mareen dowlad raadinta Soomaaliyeed iyo sida foosha xun oo dowladeedii anagu aanu isaga ridnay. nasiib wanaag mar kale inay dowladeedii noo soo noqotay oo uu leeyahay war maanta idinka fakan mar kale. waxaa ka mid ah dadkii halkaas iyaguna aad uga hadlaysaan sheegay, Togane iyo Dr. Maxamed Qaasim iyo dad kale oo Soomaaliyaho ma arkaysaa kala duwan, gabar yar oo gabayo iyo heesa ka tirisay, iyo dad aad iyo aad u fara badan oo farxadda habeenkaa ka muuqatay. runtii waxa ay u ekayd Soomaalidu inay dowladdiiba hadda cusayb u tahay oo Soomaaliya maanta aan dowlad uga horreyn, siday iyagu muujiyeen dadka markaan ka eego. waxa kale oo unique ahayd ama tala gaara ahayd oo aan hore u dhicin, cadad intaa la-eg oo safaarada ah iyo parliamentarian ah iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda iyo siyaasiyiin kala duwan iyo ciidamada nabadda, dad intaa tiro la-eg inay qadiyadda Soomaaliya ka soo qayb galaan, waxay ahayd taariikh uguba oo aan looga horreyn. waxaan oran karaa markaynu warkaas soo duubno, Soomaalidu maanta waxay gaartay oo dalkan Canada ka gaartay, gaar ahaan shirka isaga ka gaartay, taariikh cusub weeye. laakiin maxay ku fiicnaan lahayd? waa meeshaasoo aan laga soo noqon oo aan la damin ee kor loo sii wado Soomaalida, inagoo ka eegayna danta guud, israaca Soomaaliyeed, horumarka dalkeenna, wadajirkeenna, isjacaylkeenna, maxaan ku iraahdaa xoogowga wadalkeennii ina ka gubtay mar labaad inaynu soo noqono. wixii tagay tiigsimaad ma leh, wixii tagay inaynu hadda u oyno 14 sanana soo dhaafay macno samayn mayso. laakiin waxaa macno inoo leh war 14 sano oo soo socono maxaan qabanaa, dowladda Soomaaliyeed see u dhisnaa, dalka iyo dibadda iyo dumar iyo rag iyo dhaqaale iyo talo iyo gabayo iyo heeso iyo qur'aan iyo madaraso iyo jaamacad maxaynu qabanaa. I believe inay taasi tahay meesha salka ah oo aynu u baahannahay inaynu hadda isla qabanno. war ma isla qabanaa hadda? waxaad ileedihiin sida ii wada muuqata dhammaantiin, haa, waana hadalkii aad soo tiraahdeen. marka loogow looba jooge, waynu arki doonaa nin waliba dhaartiisa iyo ballanqaadkiisa halka u gaarsiiyo. walaalayaal, daawadayaal, mudanayaal iyo marwooyin, rag iyo dumarba, aad iyo aad baad u mahadsantihiin fiirsashada barnaamijkan
waa inoo mar kale iyo inagoo halkaa kasii daadihina horumarka dalka Soomaaliyeed